السلام عليكم أصحابي كسو dhawaada channelkeena Uma Shahaad haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar haddaad horey noola joogtana like waxba kaama dhibeyso maasha Allah maanta halkan waxaan idinkugu wadaa mask loogu talagalay wajiga iyo jirka labadaba loo wada isticmaalayo waxa wax natural ah waxyaabo gurigaaga iyo jikadaada aad ka wada helaysid wax ku kalifaya maaha oo maasha Allah jirkan ku nadiifinayo alaabtan aad iyo aad ay ku anfacaysaa haddaad tahay qof aroos ama hooyo uur leh ama haddaad tahay dadka jilbaha iyo xusullada iyo qoorta madmadowga ku yeesha haddaad tahay maasha Allah aad iyo aad ay ku anfacaysaa wax allergic ama maxaa la dhahaa xasaasiyada kuguma sameynayso waa wax wada natural waa wax dabiici ah gurigaaga iyo jikadaada iyo gacantaada aad ku wada sameysanaysid ka faa'iido inta aadan maskiga sameysan waxaad u baahan tahay inaad marka horeeto wajigaaga ku sameeydo qolof dhac ama qolof ridis macnaha takhshiir jildiga dhintay inaad ka qaado marka hore wajiga ayaad u baahan tahay si maskigi aad markaad sameysatid faa'iidadiisu ay jirka u gasho oo inta aadan maskiga marsanin ka hor waa inaad jirka wajigiina nadiifidaa ama jirkii midka ugu tala gashay adigu markaas waxaan ku soo shubtay hal qaado sokorta brown-ka ah haddaad mid cad haysatidna waad isticmaalin kartaa xabad yaanya ayaan soo qaatay jab ayaan ka goosanayaa jab bis ayaan ka isticmaalayaa sidan inaad sameydana waa muhiim maxaa yeelay jirka dhintay haddaan laga qaadinin marka horeeto maskiga natiijadii loo baahnaa soo ma saarayo marka waa u baahan tahay haddaad xataa aadan maskiga sameysanaynin intaan keligeed waad sameyn karaysaa gacanteyda ayaan kuugu tusayaa yani adiga wajigaaga ku sameyso laakiin gacanteydaan kuugu tusayaa waad ku xoqaysaa maxaa la dhahayay meeshii markaa adiga aad rabtid in aad midabkeeda u furmo ama midabkeeda aad u soo laabto ayaad sidan ku sameynaysaa aniga gacanteyda hadda idin ku tusaa laakiin qof walba ama jilib ha ahaado ama qoor ha ahaado ama xusulka ha ahaato wajiga ha ahaado meel alla meeshii markaas aad rabtid inaad wax marsatid intaad marinin ka hor ayaad sidan ku sameynaysaa taas waxay ka saacidaysaa in ay qolofta iyo maxaa la dhahayay jirka dhintay skinka kor saaran waxaan halkan ku sameysanaynaa hadda maskigii markii aan soo nadiifinay jirka kadib inaan marino ugu talagalnay waxaan ku shubanaynaa hal qaado oo zabaadiya iyo ama yogurt midka u taqaanid ama caanaha fadhiya yani garoorka waxaan kaloo ku darsanaynaa hal qaado oo waranga ah kadib waan isku qasaynaa si fiican ayaan isu dhexgelinaynaa ilaa oo sida kareemkii uu ka noqdo oo asaga dhan isdhexgalo oo maxaa la dhahay oo isku ay warangadii ay si fiican u raacdo isu raacaan zabaadiga kadib waxaan ku daraynaa qaxwada ama bunka midka turkiga waliba ah maahan qaxwada Soomaalida waa qaxwada Turkiyaanka ah sida ciid camal ah kadib waan isdhexgelinaynaa iyagoo dhan haddana si fiican ayaan isku qasaynaa oo isu dhexgelinaynaa ilaa ay iyaguna israacaan oo maxaa la dhahayay wixii oo dhan isku qasmaan kadib waxaan soo qaadanaynaa jab liin ah liintaadu hadday biyo badan tahay adiga qiyaas intii adigu inaysan jilaac biyo ka noqonaa la rabaa oo sida cream ay ku ahaato jabka liintaan ku miiraynaa si fiican haddana isu dhexgelinaynaa waxaa sameynaysaa marka meeshii adiga marka aad ugu talagashay inaad marida ayaad marinaysaa gacan ha ahaato waji ha ahaato qoor ha ahaato hadba meeshii adiga marka aad doonayso inaad marida ayaad marinaysaa si fiican ayaad u kala gaarsiinaysaa gacmuhu meelaha ay ka laalaabmaan oo kaleeto si fiican ayaa ugu xogaysaa maxaa la dhahayay jirka dhan ayaa deeqsiine kadib waxaa sugaysaa ilaa uu qalalo markuu qalalo kadib ayaad ka dhaqaysaa oo maxaa la dhahayay ka nadiifinaysaa maskiga markaad iska dhaqdo kadib waxaad sameynaysaa si aan jirkii u qaleyl u noqonin waxaad sameynaysaa coconut oil ayaa soo qaadanaysaa qofkaan haysanin waa muhiim coconut oil-ku jirka aad ayuu ugu fiican yahay coconut oil-ka ayaad wada marinaysaa wajigii ama gacantii ama jirkii kale meeshii markii adiga aad wax marsatay
sidoo kale rose waterka kale waad isticmaali kartaa asagana wuxuu siinayaa jirka maxaa la dhahay wuu qoynayaa oo jirkii wuxuu ka dhigayaa wax softiya oo inuu dry isu bedelo ayuu ka ilaalinayaa maasha Allah marka ka faa'iideysi wacan asxaabay haddaad ka hesheen channelkeena subscribe saar